dawada maanta waxaynu ka hadlaynaa barnaamij runtii aada hadda looga hadlo. waxaa la yidhaahdaa qofku waa inuu yeeshaa shaksiyad qawi ah, shaksiyad xoog badan. waa inaan qofku noqon qof daciifa oo liita. haddaba waxaa jira waxyaalo lagu garto qofkaasi inuu qof daciif yahay, qof shaksiyadiisu ay hooseyso. waxyaalo lagu gartaa jira. waxaa ka ah qofku inuu aqbali waayo naftiisa, aqbali waayo qofku daatadiisa iyo shaksiyadiisa iyo muuqaalkiisa iyo qaabku u eeg yahay inuu aqbali waayo, uu ku qanci waayo. waxay tilmaamaysaa qofkaasi qof liito oo daciifa, shaksiyadiisu ay daciif tahay ayay tilmaamaysaa. maanta daawada waa cudurada ugu waaweyn ee caalamka dad badan oo ka mida ay ka cabanayaan inay ku qanci la-yihiin muuqaalkooda, qaabkay u eeg yihiin. taasi waxay ku keentay qofkii warwar bay ku keentay iyo walaac joogto ah bay ku keentay, bal qaarkood xanuun bay ku keentay, bal qaarkood waxay sameeyeen intixaar iyo isdil bay sameeyeen, iyaday sabab u noqotay inay ku qanci waayaan muuqaalka ay leeyihiin ee ilaahay u abuuray. dawada caalamka maanta researchadu waxay tilmaamayaan 6 ganacsi ee caalamka ugu waaweyn waxaa ku jira alaabaha la isku qurxiyo. dawooyinka la isku qurxiyo, alaabaha la isku qurxiyo waxay ku jiraan 6 alaabood ama tijaaro ee caalamka ugu waaweyn. 6 ganacsi caalamka ugu waaweyn ayaa waxaa ku jira alaabaha la kala iibsado tilmaamaya sida la isku qurxinayo. nin caano oo runtii la yidhaahdo magaciisa Maxwell Maltz oo dhakhtar ah ayaa wuxuu qoray buug la yidhaahdo ataxakum nafsi. buugga qoray wuxuu ka sheekeynayaa cilmi nafsiga. ninkana dhakhtarkii iyo takhasuskiisu waa dhakhtarnimo, weliba wuxuu ahaa dadka isqurxinaya ama dumarka isqurxinaya, wuxuu ahaa dadka runtii isqurxinta u sameeya. wuxuu ku takhasusay dhakhtarnimo, kumuu takhasusin cilmi nafsi, kumuu takhasusin. buugga markuu qoray ayaa waxaa la weydiiyey, adiga oo dhakhtar caadiya ah oo marka horeba ka shaqeynayay qalliinka dadka isqurxinaya iyo sida loo qurxiyo, maxaa keenay inaad qorto buug ku saabsan cilmi nafsiga? maxaa keenay? wuxuu yidhi, markii aan baadhay dadkani imanayay, dumar iyo ragba markaan baadhay aan eegay ayaa waxaan ogaaday dadkani kama cabanayaan muuqaal ay leeyihiin, bale waxay ka cabanayaan nafsiyaadkooda ayaa wax ka siiyihin. nafsiyaadkooda nafsi ahaan ayaa dadkan wax ka siiyihin, laakiin si jir ahaan iyo muuqaal ahaan dadkan waxba kama sii aha. qaar badan oo kamid waaba qurux badan yihiin, laakiinse naftoodii markaan eegay ayaa waxaa ii soo baxay nafsiyan inaanay isku qanacsanayn. taasi waxay keentay buu yidhi inaan buuq qoro cilmu nafsiga ka hadlaya oo ka sheekeynaya qaababkan ay dadku si qurxinayaan iyo nafsiyaadkooda. daawada markaa qofku inuu ku qanco muuqaalkiisa iyo qaabku ilaahay oo u abuuray, waxaa la yidhahdaa waa waxyaalaha ugu muhiimsan baa la yidhahdaa. qofkuna naftiisu ma degayso ilaa uu ku qanco muuqaalka uu leeyahay iyo qaabka ilaahay u abuuray. hadba su-aashu waxay tahay, maadaama dad badan ay cabasho ka qabaan hawsha oo warwar qaarkood ay ku abuurtay, oo dumar badan ay ku abuurtay warwar, bale rag badan ay jiraan oo ku abuurtay, maxaa lagaga bixi karaa? waa maxay dawadu? kow waxaa ugu horeeya bay yidhaahdaan, qofku horta waa inuu aqbalaa naftiisa, waa inuu aqbalaa qaabka ilaahay u abuura, waanaad aqbashaa. muuqaalka aada leedahay sida aad u abuurata waanaad aqbashaa. waxaan quruxda la yidhahdaa waxaa la yidhi waa wax isbabedela, wax joogtaaba maahaba. taariikhda marka laga sheekeynayo, carabtii hore marka laga waramayo, waxaa la yidhahdaa carabtii hore qofka runtii la rabo in la sharfay ama qofka sharafta badan ee shariifka la yidhaahdo wuxuu ahaa qof lahaa bidaar lahaa buu ahaa. bidaartu waxay tilmaami jirtay sharaf bay tilmaami jirtay, oo qofka shariifkaaba bidaarta yeelan jiray oo dadka ay dhegeysan jireen. bale sheekh al-Asfahani waxa uu tilmaamayaa, waxa uu leeyahay qofku si uu u noqdo qof shariif ah haddii aanu bidaar lahayn wuxuu isku dayi jirayba inuu timihiisa wax ka jaraba. marka carabtii hore markaad eegto bidaartu qurux baabay ahayd. bale hindida haddaad maanta dhaqankooda u gasho, hindida markaad dhaqankoodii haddaad eegto, ninka ragga keebuu ahaan jiray? ninka ragga wuxuu ahaan jiray ka caloosha weyn,
maantan caloosheenna waaba cayba ninka ragga ayaa waxa lagu yaqaanay hindida dhexdeeda wuxuu ahaa ninka caloosha weyn calooshiisa halkaa kasoo xoqo ayaabaa nin khatar oo laga baqdaba bale Afrika qaar ka mid ah waddanada qaar ka mid ah sanku inuu weynaado quruxda ka mid waddanada qaarna qofku inuu ilkihiisa dheeraysta quruxda lagu daray bale waxaan ognahay Soomaalida gudahooda hadday dhaqanka u soo galo Soomaalida carabtaba buurnida waxa la yiraahdo de dumarka burbura qurux baa loo yaqaanay berigii hore carabtii Soomaaliduba imkana waa kan de isbedeleen ee loo yaqaano buurnida waxa loo yaqaanay in ceeb aanay wax fiican aanay ahayn bale waxa la yiraahdaa carradu berigii hore waxaan jirtay ceeb laakiin maanta carradu waxay noqotay mooda ayaabay noqotay marka waxa la yiraahdo quruxda la yiraahdaa wax meel taagan ma dhaqamada jira iyo kolba muxuu ahaay deegaanka jira ayaa kolba qaabeeya wax sharitoola qurux loo yaqaanay ayaa maanta noqon kara waxaan qurux ahayn bal taa waxa ku raacaya quruxda laftigeedu joogta ma maanta hadaad qurux badan tahay 20 sano kadib waa isbedelaysaa 10 sano kadib waa isbedelaysaa markaad warato muuqaal kala yeelanaysaa marka wax joogto xataa aad ku halayn karto oo sida u jireema waa haba sida daraadeed waxa runtii ay ku talinayaan culimada runtii cilmi nafsi waxay yiraahdaan qofku waa muhiim inuu qanaaco yeesho oo naftiisa qaabka uu abuuran yahay si kasta uu eeg yahay inuu ku qanaaco waa muhiim waxay yiraahdaan waa muhiim inaad ku qacdo waxaanad ka fursaneyn dad akhda buuga Dale Carnegie ee buuga caalamka u caansan wuxuu ku leeyahay waa inaad ku qanacdaa waxaanad ka fursaneyn muuqaalkaaga mid wax ka bedeli kartaa qaabku Ilaahay ku abuuray waa maya haddii aanad wixii waxba ka bedeli kareen waxaad qasabkooga inaad ku qanacdo taasi waa qodobka koowaad markaas ay naftaada u degto oo uga baxdo warwarkan iyo walaacan ku haysta koo waxa mabda'a kuwad kooranaya war ku qanac qaabkan aad u eeg tahay muuqaalkaaga sankaaga afkaaga ilkahaaga dheerarkaaga noocu yahay ku qanac horta marka ugu horeysa mabda'a labada daawada wax weeyaan aad hawsha kaga bixi kartaa waa inaad bedeshaa wixii aad bedeli karto haddii aad wax ka qaban karto oo muuqaalkana aad wax ka bedeli karto oo si qurxin karto wax ka qabo tawaligu ogoliye haddii aad calool weyn leedahay marka hore waa inaad qirataa inaad calool leedahay waa qiro halada calool ma qarin kadibna maxaad sameynaysaa wax ka bedelo oo iska yare wajiimka galo ishabeeyo ishagaajide muuqaaladaada kale jirkaaga haddii aad wax ka qaban karto oo fududeena wax ka qabata oo adiga kugu xiran tahay wax ka bedel baa lagu leeyahay macna lagu ma laha halkaaga taagno lagu ma laha waxa lagu leeyahay wixii aanad waxba ka qabanayna waana ku qanacdaa wixii aad wax ka qaban kartid hagaajin kartid qurxin kartana waa inaad quruxsaayad hagaajisaa taasina waa muxaa mabda'a labaad weeyaan mabda'a saddexaad daawada waxa weeyaan quruxda insan sheegnay joogta ma quruxda asalka waxa la waata gudaha oo waa akhlaaqiyadka iyo dhaqanka iyo qofku qaabka iyo dabeecadiisa si aan marka u noqoto qof dadka soo jeeda maxaad quruxda u raadinaysaa isweydii quruxdan adras waxaad u raadinaysaa waa inaad dadka soo jiidato haddaba taasi haddaanay suurtagal kuu noqonayno sidii la rabay aanad u helin waxaa lagu leeyahay qurux kalaa jirto kasii fiicane oo weliba joogto ahe waa ta guntaada iyo dabeecadaada iyo akhlaaqiyaadkaaga taa samee taa ku dhaqan marka taa haddaad ku dhaqanto oo dabeecad wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan aada yeelato ummaddu way ku jeclaanaysaa ciddii aad rabteen ku jeclaanaysaa ku jeclaanaysaa waana ta joogtada ah bala waxa la yiraahdaa dadka inta badan muuqaalkoodu wax ka yaraysan yihiin meelu naafaka ah ama meelu sidii la rabay aan sidii ahayd aan ahayn waxa la yiraahdaa dadkaasi inta badan waa dadka wax noqda weeyaan Dale Carnegie baaritaan buu ku sameeyay dadka caalamka soo maray ee wax qabadka la yaab kale iyo taariikhda ka tagay buuggiisa wuxuu ku tilmaamayaa buugga la yiraahdo sida u joojinayso warwarka wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu ku leeyahay waxaan ogaaday nin kasta oo wax noqday sabab inay u ahayd caahayar ama in yar oo meel ku lahaa in yar oo meel ku lahaa noocay doontaa noqotee intaasa waxay u horseeday inuu horumar sameeyo sidoo lahaa intaadan dee dadka wax ka bedelo yaan la arkin
ayaa waxay u horseeday horumar kaloonu filanaynba oo la yaab leh. bale taariikhdu waxay dhigaysaa dadkii soo maray haddaad akhridan maanta caalamka yani fiisigiska caalamka yaa haystay imika muddooyinkii ugu dambeeyey. Stephen soo maaha caalamka fiisyahanka de waa naaf, waa ninkaa bahasha lagu wadan kici karayn. Thomas Edison muxuu ahaa dee laambad marka laga shanayso isagu muu samaynin, dee nin aan wax aada waxu maqlin jirin buu ahaa, maqalkiisu zero buu taagnaa oo sababtii looga saaray iskuulkaba ayay ahaydba. haddaad usoo gudubto Socrates ninkii falsafadaba keenay dee waxa lagu leeyahay waxaa nin aada u faaxo. bale haddaad usoo gudubto muxuu ahay culimadii carabtee waaweyneed Cataa bin Rabaax xaramka ninkii muftigiisa ahaa dee muuqaalkiisu ma ahayn muuqaal muxuu ahay waxay ku tilmaamaan muuqaaladan dee markaan afkeena ku hadlino foosha xun lagu tilmaamo ayuu ahaa. bale haddaad gabayada haddaad eegto Abu Catahi ragga ugu khatarsanaa dee wuxuu ahaa nin isla muxuu ahaa aan qurux lahayn buu ahaa. bale haddaad eegto Axnaf ninkii carbeed ee la yiri hadduu seefta kor u qaado 100,000 oo qof baa seeftooda kor u qaadaya iyagoon isweydiinayn Axnaf muxuu kor seefta ugu qaaday ayay kor u qaadayaan, amarkuu bixiyo halkiisa lagu fulinaya. ninkaas waxaa nin runtii waxay gaaban oo fool xun oo muxuu ahaye in lagu qalqalooca. taariikhda dhan haddaad eegto saa usoo marto waxaad yaabaysaa dadkii wax ka bedelay in badanoo ka midi inaanay muuqaalkan ay dadku raadinayaanay quruxda aynu ku sheegno intooda badanba aanay lahayn. taa macnaheedu waxa weeyaan waar waxa muhiima inaad naftaada dhistaa muhiima, inaad muuqaal yaroon joogto ahayn oo isbabedelaya aada ku mashquusho maaha. weliba dumarka markaynu ka hadlayno maanta waxaad moodaa muuqaalkooda inuu noqday lambar 1 inay siiyeen ihtimaamka koowaadba, mudnaanta koowaadba muuqaalkay siiyeen. taasina wax khatarteeday leedahay. laga qofka hadduu muuqaalku ku mashquulo oo israado qofkan aad rabto aad raadinaysaa muuqaalkan buu rabaa dabad baad galaysaa. bale waxaa xaqiiqo inuu maanta soo baxaya gabadha marka intaan la guursana waa muuqaal, marka la guursana waa muuqaal kale. intaan la guursana way iscadaynaysaa, waxay iska dhigaysaa khatar bay iska dhigaysaa. ragga qaarna waa la mid, maalintii guursatana dee ninkii guursaday wuxuu ku arkayaa muuqaalkeedii rasmiga ahaa buu arkayaa. taasi maxay keentay in la kala tago, guurar badan oo fashilmay qayb ka noqoto. marka qofka muuqaalkiisa saxda waa inuu ku noolaada, haddii kale werwar ka bixi maayo, haddii kale qarin buu ku jiraya. mushkiladdiguna waa qarinta. qofku hadduu isla qari muuqaalkaaga meeshaanad iinta ku leedahay dadka ka qaray hadduu isiraahdo markaasi werwarku bilaamaya. intaad waxba ha qarin. haddaad da-daadu weyn tahay oo da-weyn aad gaadho da-weyn maxaad ka qarinaysaa? waa xaqiiqo weynaad weynaatay oo qofkii ku raada waad weynaataa haddaad ka carooto dee maalinkas caraad ku noolaanayso. marka xaqiiqada naftaada lama qariyo. taasi waa qodob. mabaadida kale wax lagu bedeli karo waxaa ka mid ah waxaad ogaataa inaad adigu qof gaaran tahay, noocyad gaara aad tahay, cidna ha ku dayan. mushkiladda ugu weyn waa muqaaranada. wax laga qofku qof kaleu isku dherarinaya. inantiibaa inan kaloo saaxiibayiin ba isku dherarinaysa. heblaha saasay u eegteen ana isu ekisiiyo. ninku wuxuu isku dherarinaya nin kaloo caana ayuu isku dherarinaya. hebel saasuu egyahay, saasuu u xirtaa, qaabkaas waxa muqaaranada la iraahdo waa wax qofka dilaba. muqaarano waxa lagaa ogolaya inaad qofka muxuu ahaay aada isku dherariso markay aqoon tahay iyo cibaado iyo diinta markay tahay. inaad tira hebel waa saas u cibaadaystaa, ana hebelkaa aan gaadho qaabkiisa aan u cibaadaysto. lase maadiga baa wixii maadiya muqaarano lama sameeyo. walaac baad ku noolaanaysa. maalin kasta haddaad muuqaalka intaad muraada isku eegto aad heblaayo kaluun isku dherariso walaac ka bixi maysid. markaa jooji muqaaranada. adigu qof gaaro, noocyad gaarad, qaab gaara lagu abuuro. cid kasta waad ka duwanta. taa waanaad ogaata. qodobada muhiimka. mabaadida muhiimka asalka waxaa ka mid a ilaahay nicamku ku siiye balkooboo is eg. haddaad meel yar ka cabanayso muuqaalkaaga meel yar baa laga inay wax ka yara si yihiin. intaasun haddaad aragto oo aad arki weydo ilaahay abuurku ku siiyey oo dhammaystir arki weydo dee walaac baad ku noolaanaysaa. laakiinse waxa lagu leeyahay bal adigu tiri nicamku ilaahay ku siiyey. hadduu ilaahay ishan uu wax ka yara saaray oo sidii la rabay aana u yara eekayn dee bal waxaa isweydiisaa haddii indhaa la-aan aad noqon lahayd ka waran. danba labadu hadday ku halayn ka waran. bal lugu la-aan haddaad halayd ka war. bal gacmo la-aan ka war haddaad halayd. nicamka ilaahay tiri.
markaas waxaad ogaanaysaa inteera inteed leedahay waxba baynaanahay meel weyna inaana jirin marka waxa laga mabaadida ka mid tahay inaad nicamka ilaahay aad koobto oo tiriso markasoo arrimahaasi ay ku soo dhex galaan waana taa aad isku dayda taasi waxay keensanaysaa markaa inaad runtii noloshaadu ay degto waxaa ka mid a mabaadida runtii hawsha dee loo isticmaalo lagaga badbaado waxba ha ka soo qaadnay waxyaalaha liita ee aada maqlayso dadka inta badan waxaa kala kiciya qofkii dumar ahayd oo iska labisan oo iska faraxsan ayaa mid baa soo agmaraysa ama saaxiibadeed markaasa waxay ku oranaysaa oo maanta dee way kaa yara xun tahay oo dee aada uma nuuraysido waa sidan halkana wax kaa yara siiyo kelmadii yareeda gabadhaasi ku tiri ama ninkaasi ku yidhi ayaa qofkii dumarka ahayd weleed kusoo noqonaysa maskaxdeeda tiibay ka warwaraysa maxay sidaa kuu tiri muuqaalkaagu malaha ma fiicna malaha sidaa matid malaha kan matid warwar bay gelaysa arrimaha noosa waxaa loo yaqaanaa waa wax liita tawaafa yani waa wax liita waxaa taafihay liita waxbaha ka soo qaado hadal kasta oo lagu iraado haddaad wax ka soo qaado nolosha daw ciriiri bay kugu noqonaysa marka hadallada noocaaseed maqlayso asxaabtaada ka maqlayso dadka kale ka maqlayso waxbaa ka soo qaaday wax alla waxay kaa bedelayana ma jirto maskaxdaada lama siiyaba waa laga sii daayaa maxaa arrintaasoo kale lagu noolaadaa tajaahul wax leer waa la iska ignore garay wax alla wixii noocaasaad aragtay ee wax kaa sheega muuqaalkaaga waa la ignore garaya qaabkaasaa lagu wada marka mabaadidaasina waa kuwa runtii ugu muhiimsan qofku noloshiisa si ay u degto waa qodobada muhiimka daawada waxa haddaba aynu kusoo koobayna hadalkeenan maanta waxaa la yidhaahdaa qofku inuu aqbalo naftiisa waa inuu aqbalaa muuqaalkiisa waa inuu aqbalaa haddii muuqaalkiisa guud waa inuu aqbalaa hadduu dheer yahay hadduu gaaban yahay hadduu cas yahay hadduu madow yahay reerkiisa waa inuu aqbalaa qabiilku ka soo jeedo waa inuu aqbalaa jinsiyadiisa waa inuu aqbalaa waad arkaysaa dibadaha haddaad tagto nin soomaaliya jinsiyad kale iska sheeganaya isagoo runtii ka maxaa xaqiraya jinsiyaddii soomaalinimada maxay tilmaamaysaa qofkaasi waa qof daciifa qof hooseeye weeyaan jinsiyadaada ay halkaad ka soo jeedo waanaad sheegtaa cidna aanaad uga baqan marka waxa lagu leeyahy wax kasta aqbal jinsiyadaada naftaada muuqaalkaaga waxba ha qarin ku kalsoonow sidaasuu ilaahay io abuur soo maaha miya wax ka bedeli karaa waa maya jinsiyadaada ma bedeli kartid yani halkaad ka soo jeedo soomaalinimada qabiilkaaga ma bedeli kartid muuqaalkaaga ma bedeli kartid wixii aanaad bedeli kareen ku qanac sidaana ilaah subxaad ugu mahadnaq kadibna sidii wixii aad bedeli kartana dee waxa lagu leeyahay isdhigayna wixii aad bedeli karto ka shaqee oo bedel oo sida wanaagsan u bedel waxaanad ogaataa waxaan inuu ilaahay nicmad ilaahay ku siiyey oo kuu gaar tahay markaasna taawaniyadiglisa oo sidaa si ka xun ilaah ku abuuri karaa si kaliitu ku abuuri karaa laakiin sidaa uu ku abuuray waa sida ugu fiican ilaahayna ugu mahadnaq intaasay kusoo koobayna. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.